بسم الله كلنتي وعن مرلبات وإصلاح العبور عبد الولي يوسف تحدث كلام رأى ماشي أنا كسوق بيه وقبي وحال يرى هذا ما قاعد من نمو وحن دريمها هي قفل بصومالي ما أنت يتواجب كسارا إيه وحال جربه مضح إيه معمول با سداس أوجد من نما اللي يرى هذا وحن رجينا هي إن إلهينا نقول أنفعه أن نقول أن نسكت دينه كل عن كذا marka hore allaan mahadiyaa muumin baan ahaye oo maalik baan qirahayaa madax ahaantiisa in macbuudku kali yahay ayaan maanka ku hayaaye oon cidila maamulin arligan maqana gaarsiin marka xiga rasuulkii mudnaa sallallahu alayhi wasallam marka xiga rasuulkii mudnaa muxamed weeyaane kii manciye xaraantii milayd geyiga maantaaye asagoon muraad kale lahayn xaqa inoo miiray مخلوق oo dhankii laga fadilay baan mahadinaya ana meeris gabaygiyo waxa la igu maasheeyay dadkan muuq wadaagniyo intii fahanta miinkayga suugaan mug weyniyo inaan siiyo mudankooda on meel fog kaga tuso waxay muhatay laabtoodu muciin male adduunyadu ileen waa la marayaaye oo meel nagaashiya ma jiro mudulla waaweyne waa marinka aakhiro jidkii lagama maarmaane wixii labada malag kuu qoraa mawlo la horkeeni midnimiya waxaan raadinaa inaan maqsuudnaaye milge iyo waxaan sama lahayn magaca soomaali mariinkii wataan xoornayoon muddiyo soofaynay oo mawdka ee baabaxshee maata uur dooxnay waxaan milil qabiil iyo xumaan meel isugu keennay oon madax ka dhiganaa kuwaan maalina mataline muran iyo waxaan been maldahan suuqyadaa marino ma hilmaanay maandeeq dad yahow madidii noo fooftay ruux malaga raadshaa ma jiro nabaddu waa moole iska daa inaad meel tiraa ani ayaa meertay guddigeen marxuun iyo addoon mawd socdaan nahaye markhaatiya waxaan nahay kuwaan marna la dhaafayne u miciin walaalkaaga midig maalin ha hilmaamin miskiinkiyo tijaar kuma marnaba kalama maarmaane mas-uulkuba markuu madaxda rabo shacabka yuu meeri waryaa moog inaan mudac shaqayn oon wax lagu maalin muddi af leh iyo hub iyo rasaas inaan wax lagu maalin yaa moog waryaa moog inaan mudac shaqayn oon wax lagu maalin